barkhad jaamac batuun iyo anagu aanu nahay laba qof oo markaasi istoortay heshiiyey kadibna isguursaday wabacdayna ilmo ilaahay ku arsaaqay. mushtaaq cabdinaano ayaa markii ugu horeysay waxa ay soo hor fadhiisatay saxaafadda waxaana ay ka hadashay kiiska maalmihii ugu dambeysay sida weyn la iskula dhexmariyay gudaha Soomaaliland ee u dhaxeeyay iyada iyo xildhibaan barkhad jaamac batuun oo ka mid ah xildhibaanada aqalka golaha wakiilada. mushtaaq waxay warbaahinta tustay oo ay soo bandhigtay waraaqda caddeynta ah ee meherka ee u dhaxeeya iyada iyo barkhad jaamac batuun waxaana bulshada Soomaaliland ugu baaqday in aan sharafteeda meel lagaga dhicin waxaan ay tiri. bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa mushtaaq waxaana shirkan jaraa'id u qabtay ama qayb ka mid ah saxaafadda ee Soomaaliland gaar ahaan Hargeysa aan damcaynan ula hadlo laba siyaabood oo markaasi maalmahan u dambeeyay xawayaan baraha bulshada si kala duwan loo wadwaday waxay haayeen arimahaasi mid waxay ahayd in markaasi sharafta iyo cirdiga iyo markaasi qofnimadiisa lagu ciyaaro xildhibaanka barkhad jaamac batuun si kale markaan u dhigana aniga laftigayga ma aragtay sharafteediyana meel lagaga dhaco anoo qof dumara waxa weeyaan muhiim iyo qasabna aan ahayn mar kasta in ma aragtay hadii aan guursanayo iyo hadaan guursanahay dadweynaha ma aragtay ogaadaan iyadoon qasab hay waxaan rabay inaan horta halkan ugu horeyn ka cadeeyo anigoo miirkayga iyo maankayga qaba in barkhad jaamac batuun iyo anagu aanu nahay laba qof oo markaasi istoortay heshiiyey kadibna isguursaday wabacdayna ilmo ilaahay ku arsaaqay. waxaan leeyahay dadyoga inta wax ka dhex raadinaya ma aha intan tii wax laga dhex raadin lahaa maaha nimanka siyaasadeynaya barkhad baa gabadh guursaday aanay isku qabiilahayn oo ay uga jeedaan magayo qabiilada kale maadaama sugday qabiilka yahay waxaan leeyahay nimayahow dib isoogu noqda habla dhasheen ugu yaraan waa qabtaan waxa weeyaan waa la dhalateen haddaydaan u dhixin waa u dhixi doontaan oo de waa guursan doontaan marka intii wax laga dhex raadin lahaa maahe dib ku noqda baan leeyahay. waxa kale aan sheegayaa anigu mushtaaq ahaan waxa weeyaan waxyaabo waxa jira dhaqan 200 oo sanadood soo jiray waa run oo anigu shakhsiyan aan waxba ka qaban karin shaqo fara badan iyo hawl badan u baahan aniguna aanan dabcan ahayn qof keligii jabin kara deerka caynkaas waxaan samoodayay in ay 200 oo sanadood kadib sidii dhaanto oo isma lahayn 40 sanadood ka hor ama 30 sanadood ka hor caynkii lahaa ayaa istii leeyahay oo dhalinyaro far badan oo wax baratay wax fahmay ayaan islaha way ka mid yihiin dadyo wax fahmay inaanay waxba ka jirin dhaqanka caynkaas anoo miirkayga iyo maankayga qaba ayaan guursaday barkhad caadiyana anigu dhaqamada caynkaas ay dadyogaasi aaminsan yihiin shakhsiyan ma aaminsani wana sababta keentay inaan anigu ninkaasi aan ku qanacsan oo wax weeyaan soo jeeda oo sixranayn oo wax weeyaan caafimaadkayga qaba maskaxiyan iyo wax weeyaan jir ahaan baan oo qaba inaan guursado oo markaasi heshiino taasi waa taa inan qof dumara oo waxa weeyaan intii meediyaha timiday tiri warqadii la igu meheriyay baa tan ah waa dareemi kartaa waxa keenay halka waa nimanka siyaasadeeyay waxa weeyaan in sharaftiisa iyo cirdigiisa iyo waliba tayada lagu ciyaaro lacagayowga ku bixiyay markii la yiri hagaajiyay shaqooyinkiina lacagayowga ku bixiyay in markaasi ninka waxa weeyaan leeyahay halala kaco simbal marka warqadii aan anagu isku mehersanay baa tan ah sababtaan u keenay meediyahana waxa weeyaan maadaama oo ilmahayga ruuxu jira ku dhawaad 6 bilood waxa weeyaan bishii 6aad wax yar baa uga dhiman 6da biloodna Soomaali Maxamed gaar ahaan dadyoga siyaasadda ku jira oo wax way ayaa qaabab kala duwan u adeegsanayay marka arinkaygaasi anagu de qasab ma haynan meediyaha inta nimaadna dhana waan iskuursanay ama meherkaygi baa halka ka dhacay wax qasbayaan u garan maayo qasabna ma ahayn barkhad dad baan ka dhashay weydiistay dadkiiba markii daba lala dagaalayo deelay siday ku dhacday nin caynkaas inuu gabadh caynkaas guursado diidaysan ugu garan maayo waa nin Soomaali muslima isku dhaqan nahay de waxa weeyaan isku bi'aadna nahay marka waxyaabaha sheegaysan anu garan maayo muhiimku waxa weeyaan inaan idin sheego
in anigu iyo barkadaan isguursanay oo markaasi ilmaha ayagaan dhalayna ee ceebeynaysan ee madaragtay idinku caruura dhalay intiina badani waxa weeyaan hooyooyin iyo aabbo meeran ah haddaydan noqon doona ilmaha yar inta leeg waxa weeyaan ceebta iyo waacaynkan iyo sidan buu xaaladaba socotaan inaan idin idhaahno sida moodaysan ma he waacaynka waxaan doonayaa inaan ku soo gabagabeeyo nimanka leeyahay shaqadiina hagaajiyo kadibna aniga sharaftayda iyo cirdigayga dhulka jiidaya haddii aad shaqadiina hagaajiyo oo leeyahay wax weeyaan hablo sharaftooda u korkoraysaan oo lacag ku bixinaysaan in maxaa la yiraahdaa sharaftayda iyo qof bini'aadam oo ilaahay abuurtay rabbigiina sameeyayba intuu ina abuuray haddana ina karaameeyay inta inagoo gaf iyo khalad maalin walba galayna astura maanagoon qalad galina waxa weeyaan waxa noo ceebaysaan noo daba joogtaan sharaftayda iyo cirdigayga dhulka u jitaan iyo karaamadan leenahay waxaan u maleynayaa wax badan baydaan fahansaneen haddaa fahansantiin waa yeelaysaan tani waa adduunyo aakhirana way dambaysaa marka waxaan ku gunaanadayaa wax badan saa doonaysaa noqon maayaan anagu noqon mayno oo yeeli mayno inaan intaan soo hor fadhiisano in idhaahno guurkaygii baa caynkan ahaa iyo sidan buu ahaa wax weeyaan tamaanta keentay iyo in warqadda meherka aan idin hor keenana waxa keentay uun jiidashada faraha badan arrinkaas sagaalka wajiga kala duwan u sameyseen reerkayaga waxa weeyaan doonteen in inta kala xadaan qaarkood aniga igu soo dirtaan dhibaatadan maray tuka badan ay marisaan oo ah waxa weeyaan marka horeba anoo dareemaya culays fara badan oo igaga imanaya dhaqamadii jiray haddana tan maanta jirta halkan iska lahaa xoogaa waad ka yar baxday tan maanta jirtana aad igu darteen hadalku isaga iska badanay waxaan idin leeyahay waxa wadaan suurto gali mayso boqolaal caayuu ka sharaf badan yahay oo ka wanaagsan yahay exactly aniguna boqolaal dumar oo waxa weeyaan sharaftayda aniga si kale raba madartiin u sheega baan ka sharaf badanahay sharaftuna qofku waxa weeyaan sida dadka loo sheega maahay waa waxa dadku arkayaan marka aad baa u mahadsantihiin waxaan idin sheegay uun bay ahayd oo markaas saxaafadda aan la hadlay qaybtan inta aan idin sheegay muuqaalka qaybta sare ku sheegay waad mahadsantihiin way mushtaaqan ku soo dhaweynayaa waxaan ku weydiinayaa arintani maadaama muddo soo jiitamaysay maxaa kalifay inaad waqtigan ka hadashid waxa kalifay gulada xilliga inaan ka hadlo horta sidan uun baanay noqonin waxa weeyaan dadka imika yani media uun baanay sidan aad ka ugu sii faafin inta ilmahayga yar jiray iyo intii ka horeysaba jiidku u jiray oo waxa weeyaan markii hore waxay heedoon dhaqankii bay heed siday ku dhacday haw sidii isku guursan karaan inanta sidoo ninkani ma gayo iyo wax aynkaas ay lahayn marka hore imika laakiin waxa timiday propagandadan caynkana gabadh baa la kufsaday iyo inantii baa xiran oo inantu waxba ma kala garanayso waxa ku soo beegay marka mowduuca xilligan waqtigan iyo hadalladan imika isdhaafaya waxa weeyaan mowduuci baa sii balaadhay idan qasab waxa noqotay marka anigii dadka qaar soo wacaan beendii sheeg maayo masiirkayga waxyaabaha qaar la igu soo diray daarta waa quusan doontaan marka waxa soo kale dadyoga caynkaas dadkeena waa taqaanaa dhakaliya wax ka maqlaan social media waxa la soo dhiga markaba waa lagu dhigaa marka tan baa keentay xilligan in madaragtayaan ka hadlaha ma dhicin malaha baan maleynay aniga inta ogaalkayga Soomaalida media inta qof soo fadhiisto ma oran warqadii la igu guursaday baa tan ama oraneen aniga hortay waa inta ogaalkayga warqadana ahsita waxaan u keenay meediyaha dadyoga la sifo qaldan bay isku guursadeen ehel baan ka dhashay anigu iyo dad baan ka dhashay ma jirto gabadh la iska guursada marka hore marka warqadani waxay cadeyn u tahay dadyoga hadalkaagaas aaminsan ee la sifo sharci daraabe isku guursadeen dadyoga hadalkan baa waxa la warqadan baa jawaab u ah warqadii aan isku guursanay baa naga tan ah waxa ninka inta leeg kuwa cabaareenaya boqolkiiba boqol qaarkood ka cibaado badani inuu sifo sharci ama si qaldan gabadh u doonto ama u guursado waxaan u maleynaa waa binaadan horta uu qaldami karaa laakiin waa ninka majhuurka ay dadka ma suurtoodo marka la soo koobo warqadii aan isku guursanay anaga watan aad arkaysaa waxa jira dad far badan horta anigoo kalaayo waxa jira ama de iscaashaqeen ama wax weeyaan calafka kaba sheegan karo laakiin marka hore ay heshiiyeen laakiin deetana baqaday dhaqanka jira darteed anu gabadh kasta waxaan kula talinayaa oo maxaa la yiraahdaa dadkan horta anu garan maayo waxaynu dheernay sida runta tahay wadadka dhaqan haan la liiday Soomaalidu un caadeysatay ma aragtay caynkaas in la yiraahdo waynu ka laandheersanay
garan maayo waxaynu dheernahay garan maayo waxayna gaga duwan yihiin garan maayo yani waxaynu ku kala duwannahay Soomaali weyn inaguna Soomaali bayna waa muslim inaguna muslim baynahay taa marka laga yimaadana isku magaalo ay deganahay oo dadka Hargeysa degan khaasatan xooyan halkan ba ku koreeno ku dhashana ku barbaareen laandeernimadan waxaan qaanaa qabiilku ka badan yahay Soomaaliga cid ka badan ma jirto baan jecelahay Soomaali meel ay digtoonay deganeen ma jirtaba marka waxaan isleeyahay wax badan bay ka tarjumay in kastoo caqabadan ay arkayaan qof kasta oo binaadan oo isdhaahdo bareerna uu tan ka baqanayo oo de sudanayo dhibaatada inta leeg intaad mari leed waxa lagu qaatay adoo inadar mid kale iska doontaa haddana mabdaaga qofku mabdiisa waa inuu ka bareero anigu isle sidii bay wax dhaamaano 30 sano 40 sano ka hor sidii laha waa la dhaamaa anigu islaban anigu barxad iskuursanay in guurkayaga siday dadkaasi doonayaan hadii imika guur u madartay official ahaan laha xorintan may dhacday laakiin official waxaan u noqonahayn biyaadii iyo dhaqankii marka anagoo isla sidii wax dhaamaan ayaan sidan u badan qaabkan ay wax u dhaceen deewata hadana lagu nabadgeli waaya anagii marka la soo dhaafay sharafteeda dhulka la jeedada soo dhaafay ilmihii aanu dhalay la leeyahay ilmaha xalaal ku dhashay ma ilaahay waa idinka xisaabi doona laakiin waxa weeyaan waxaan isleeyahay wuxuun bay ka tari doontaa in la arko gabadh sidoo kala bareeraysa caqabad fara badan baa ka hor iman doonta culays badan baa saarmi doona oo